الرحيم. قدوميها قولها الشعب كبرلمان كجمهورية فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية، قدومية كحجين كعقل كسرة، قدومية كحجين ككوبات، iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta oo aan weli xilka wareejin, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, wasiirka warfaafinta ahna gudoomiyaha guddiga sare ee qabanqaabada maalmaha xorriyadda, dhammaan xubnaha golayaasha labada aqal iyo xukuumadda, dhammaan saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida, saraakiil xigeenada, dhammaan xubnaha maamulka gobolka Banaadir iyo kan magaalada Muqdisho, dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee munaasabadda caawa xaadirka ku ah, dhammaan qaybaha kala duwan ee saxaafadda, dhammaan hobolada qaranka ee jamhuuriyadda iyo fanaaniinta martida ku ah dalka, dhammaan xoogga ciidanka ee salaansaarka u diyaarsan iyo baambeyda xoogga dalka Soomaaliyeed, habeen wanaagsan, sanad guuro wanaagsan iyo dabaaldeg wanaagsan. mudana gudoomiye iyo dhammaan munaasabadda dadka jooga iyo malaayiinka shacab ee fiirsanaya munaasabaddan sida tooska ah uga socota xarunta gobolka Banaadir, waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ilaalinaya badqabka dadkiisa, caafimaadkiisana fiican yahay, ayuu wuxuu u xushay sida dastuurka jamhuuriyadda federaalka qabo howlihii jiray oo ay ka bilaabanaysay saakay waajibkiisa dastuuriga ahaa uu u soo wareejiyey gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur, gudoomiyaha golaha shacabka. waxaan ku faraxsanahay in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre si aan hadal iyo hugun lahayn, oon kala har lahayn, oon cidina diidin, cidina ka aamusan, aqlabiyadii ugu sarreysay golaha shacabka ee kalsoonida saaka ku siiyeenna uu xaadir ku yahay munaasabadda caawa dabaaldega 26 Juun oo ah markii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed laga taago ciid Soomaaliyeed. 60kii oo caawa 26 guuradiisa ay tahay. guddigan waxaa magacaabay ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble. maalmahana waxaan soo qabanay shaqo culus iyadoo ay jireen guddi hoosaadyo amniga iyo wacyigelinta iyo guddiga habmaamuuska iyo qurxinta munaasabadda maalmaha xorriyadda, anoo ku hadlaaya magacayga iyo kan guddiga habmaamuuska iyo qurxinta labada munaasabadood. si uu sii balbalaariyo waxaan ku soo wareejinayaa gudoomiyaha guddiga sare oo si fiican noogu hogaamiyey maalmihii la soo dhaafay iyo haddii Allah uu la ogolaado maalmaha soo socda, gudoomiye Cismaan Dubbe. ku soo dhawow mikrofoonka. waa mahadsantihiin.